darajada dumarka islaamka marka laga soo tago dhaqamada bulshooyinka islaamku wuxuu sare u qaaday darajada dumarka wuxuuna nadiifiyay noloshooda diimaha kale ee jiray islaamka ka hor waxay ka aaminsanaayeen dumarka aragtiyo kala duwan waxaana ka xusi karnaa kristaanka oo iyagu ka doodayay in ruuxda dumarku ay tahay mid dadka mise tan xoolaha oo kale islaamkuna wuxuu yimid iyadoo bulshada qarbeed dhaxdeeda dumarka nolosha lagu xabaalo nacayb loo qabo darteed waa kan quraanka oo arrinkan wax ka sheegaya yiri wayda bushira ahaduhum bil unta dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim marka la yiraahdo midkood gabar baa ku dhalatay wajigiisu wuxuu noqdaa mid madow oo caraysan murugo darteed يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وحونا إسكاقري بلشدة حميدة وحالوغو بشاري درتد ميو هيسان قبل إساقو عيبايسان مسوقو كؤاس عيدة وحاليته وحي قوان صدين كواسي وحانا وإسلام كشاقي إن قيامها الليسويدين دونا قبله يريراء ينولوش لغو حبالي جري إيه صوابها اللودلي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يمرك الاسويدية قبله نلش لو حبالي ذنبيه لودلي لنا عكله مركل لقاه الفائدة قيب سجى رجع يدمرك لو سميه waxa ay dumarka u goysay diinta islaamka saami la yaqaan ragana sidoo kale halka bulshooyinka kale aysan waxba u ogolayn dumarka waa ka quraanka oo ka waramaya arintaasi waqadu ma fi biduni hadhihi al-na'am khalisatun lidhukurina wa huwa muharramun ala azwajina wa in yakun maytatan fahum fihi shuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim waxay dhahay waxa neefkan uurkiisa ku jira markay dhasho haduu noolaado waxa gooni u leh raganaga dumarka yagana xaraam ayuu ka yahay hadii uu meed yahayna ragga iyo dumarku shirka ay ku noqonayaan waa ka sidoo kale quraanka oo ka waramaya saamiga dumarka للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ربو حيليه سامي waxa ay ka dhinteen waalidkood iyo qaraabadooda sidoo kale dumarkana waxay ku leeyihiin saamigooda haddii laga hadlo kala badnaanshaha saamiga dumarka iyo ragga islaamka dhexdiisa waxaad ku qanacdaa in kala badnaanshahan uu ku salaysan yahay kala badnaanshaha hadba ulayska waajibaad ee saaran ragga iyo dumarka tusaale gaaban marka gabadha la guursado biilkeeda wuxuu saaran yahay ragga sidoo kalena guurkeeda waxay ku helaysaa faa'iido laga qaado ragga guursanaya laakiin wiilku marka uu guursanayo labada culaysba isaga ayay saaran yihiin waxana kuma helo guurkiisa waajibaadka biilkana isaga ayuu saaran yahay dhinaca kale xuquuqda marka laga hadlo gabadha waxay ku leedahay ninkeeda xuquuq la mid ah mid uu isagu ku leeyahay iyada Allah wuxuu yiri azza wa jalla ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة dumarku waxay leeyihiin xuquuq la mid ah mid iyaga lagu leeyahay ilaalinta dumarka islaamka dhexdiisa quraanku wuxuu farayaa gabadha muslimada ah inay guriga joogto وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هذا gurigiina jooga hana isbandhigina sidii jaahiliyadii hore islaamku wuxuu leeyahay guriga jooga waa sharaftiina inuu ilaaliyo oo uu ka dhigo dumarka dheeman ama luud qarsoon waxa kale oo islaamku farayaa inay dumarku gurigooda ku tukadaan oo salaada ay gabadhu ku tukato gurigeeda ayaa ka wanaagsan salaada ay ku daba tukato nabigeena sallallahu alayhi wasallam ugu dambayn nabigeena sallallahu alayhi wasallam ruuxa uu ifka ugu jeclaa waxay ahayd qof dumar ah Aisha radhiyallahu anha sida uu nabigu inoo sheegay marka waxa la oran karaa ma jirto sharci uu ilaaliyay xuquuqda dumarka sida shariicada islaamka ay u ilaalisay